بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلام دمان ومضيدة مالك استاد شوكتان هوب دمانتين الذين حافمات قبطان معيسنتين حل كستا ساعات كستا يسيسن كستا يسين هنا الله سبحانه وتعالى يدكو حفتي. welcome back سو دوادا وينغي يسكسون نقولنا إيه another video إن شاء الله بإذن الله كرين هدا يقول عصبتها welcome سو دوا ولا الله فيديو لايك تسار سبسكرايب and share أنا قصبير هذا ولا الله يقهرتنا welcome back إن شاء الله بإذن الله فيديو كم وحن رفعنا وحيد كخذله أرمها السوشيال ميديا دبضنا كالصعدة ما تجعلنا كخذله ما ضحكله لكن sometimes وحيابها قيبته بمهمة إلا كخذله واحد عدا ويك كان إنه فيه ما يربى ربعنا كهالله فيه ما ويك كان ويك حتى دماد كيسي وحلينا لسوا قيب صدا إلا الديلي أو تشيل كل جاي قبل يرد الداو كويا لو أيا لنا صوت صي عاد أيا نقود حمانة دمانته سوماليا نو ولا قود حماتي كارهان دمرك رجع دمر لكن موستلي دمركي وحلاقة قرع ما بهذا السبب توصلنا كهور أيا قبل تغير داو وين وجا مركا أرنتيو سيداس أو لو قود حماتي أو وتي لسوداي ما شاء الله وتي هبين دويتو وحن داوده iyadoo la wareysanayo iyadoo live soo gashay Ayub Carlo live kama daawan laakiin markii la duubay ayaan daawaday hayeeshe markii aan videoga daawado runta markaan ka hadlo aniga always dadka waxaana intuition kooda aamina inside kayga markaan wax khaldan arko ama wax ka siihiin I always trust my intuition kayga kabacdi markaan daawanayay walaalo yartii iyo inankii oo wareysanaya hadaladii ay tiri way igeli waayeen waan shaki baa igale arrimaha hadalada ay tiri walaalo waxa ka mid ahayd inay tiri ninka naagaha aanu isleenay nin ayaa ila socday ninkoo rabay inuu i kufsado ninka waxay tiri markaa kufsiga ninkan way gurigu naaga la socday naagta ay ku soo garaacday markaa albaabkii furay way isagiiba ii soo galay sariirtu igu tuuray way ceejiyay hadii ala ku royay dharkii buu iga gooyay naaga la socday markaa soo taas waan ka shakiyay sababtoo ay nin naag raba inuu kufsado to me waxay la noqoto naaga badan la socdaan dhowr naaga la socdaan ninkoo isaga kaligii muxuu ugu iman waayay haddii odhan lahayd xataa naagtu ii qabtay naaguhu ila dilay waxyaabo kale is okay laakiin nin taas marka waan ka yaraa sidee shan dhowr dumar oo Soomaaliyeed even oo Nairobi la joogo Nairobi ninka raba inuu naag ku kufsado intuu shan naagood soo kaxaysto markhaatiya xooga aniga mar arrintaas way cuntami weyday haddana taas anigoo yaaban oo leh something is fishy waxba khaldan ayay haddana waxay tiri oo la weydiiyay ninka waxay tiri wiilka wiilaan walaaltinimo fiican naga dhaxaysa walaalo aan ahayn oo walaalo ahayn baahid ninka ayuu hebel magaciisa buu sheegay Ayub Carlo ma taqaan haabay tiri ninka waxay saaxiibo yihiin ninkii i kufsaday sanadkii dhawaad ayay ninka saaxiibo yihiin arrintaas aad ayaa ula ninkii ku kufsaday oo wixii la ogaa kugu sameeyay saaxiibkii sideebad u odhan kartaa waa walaalkeed ama xidhiir ula yeelan kartaa wax yacni aan aqligal ahayn weeyaan haddana arrintii oo saas anigu marka cidna lama wadaagna laakiin waxaan idhi something waxbaa khaldan waxba ishadal dhaafay sidoo kale iyadu waxay tidhi ninku inuu kufsado buu rabay intaana iyadu hadlin ka hor hooyadeed gabdho la hadlay iyo dad la hadlay waxa TikTok ka buuxa oo la yiri hooyadeed waxay tiri gabdho ay daris yihiin oo mar horena islaayeen ayay islaayeen oo nina la socday hooyadeed wax kufsiya may soo hadal qaadin hooyadeed wax kufsiya may soo hadal qaadin laakiin iyadu habeenkii dhawaad waxay tiri waa kufsi soo labada arrimood way iskhilaafeen ninka naagu la socday wuu idilay way idileen anigu haday tiraahdo ninku wuu idilay naagu la socday way ii qabtay naagtiisa wuu ii qabtay naagii kale ii qabtay wuu ii garacay waa okay laakiin arrinta haarkay wuu yiri no something waxba mesiya kabacdi habeen dhawaad waxaan hadana gabdhihii kamida ayaa hadashay oo waliba iyada isku family yihiin oo tiri dadkii waxaan ahaa rabay inay iyada u yimi oo inay u heeliyaan raba haddana markaan arkay inay waxyaabo khalada sameynayso baan damcaynaan qaboojiyo anigiba ila dagaalantay oo marka yadiiba balad anigii kuugu imi hiilo ayaa ila dagaalantay oo marka arrimo badan ayaa isdhaafay arrintii sidana haddana wiilkii ninkii ayaa la wareystay oo waliba dhaartay oo kitaab gacanta saaray oo yiri anigu gabadha tan
gabdhaha xamar bay isku soo laayeen xamar baan ashtakeeyay waa la xidhay gabdhaha waa la soo daayay kabacdi wuxuu yiri anigu 9 bilood baan Nairobi joogaa Nairobi baan imi guri baan deganahay gurigii aan deganaa iyadiina tuubay soo degtay buu yiri marka waa dumar iskhilaafsanaaye malaha meeshii baa dhibaatadii ka bilaabtay wuxuu yiri xaas baan leeyahay gabadheedu waa xaamilo habeen dhaweyd gabdhihii iyaba isqabtay iyo fahimo kabacdi waan soo dacweeyay markaan arkay habeenkii markaan arkay maalintii aroortii waagu markuu bariyo wuxuu waxaan arkay dumar badan oo u yimi habeenkii oo familygooda ahaa oo magaceedii soo fahimo u yimi wuxuu yiri maadaama aan aniga iyo xaaskayga kaliya ahay waan malaha way cabsadeen wuxuu yiri waxaan tagnay waan soo dacweynay dacwadii markaan soo noqonay markaas dagaal ku dhacay marka wuu dhaartay isagu wuxuu yiri gacan maasan Allahu a'lam anigu wiilkan ma aqaan ciidu yahay ma garanayo I don't know iyada abaayo waxay leedahay waa maqlay so story kastaba waxay leedahay two side hayeeshe anigu waxaan dadka aadka xaq darrada iyo beenta sababtoo ah walaasheen fahimay in la dhibaateeyay inay dad la dagaalantay dhaawac inuu gaadhay absolutely waa rumaysanahay taas anna waa rumaysanahay waana ku taageeraya laakiin waxa khalad haday qof been ka sheegtay haday khalad nin islaameed oo aan kufsan ama rabin inuu kufsado haday been ka sheegtay taas xaraam cadim weeyaan qofkuna ma fiicna qofka binaadmiga inaad dulmidid ama nabtid ninkan hoo xaas buu leeyahay caruur urbay xaaskiisa u leedahay nin gurigii kugu xigay xaaskiisa leedahay dadku way istagaalaan qofka sometimes khalad uu ka dhaca been wuu sheegaa laakiin waa khaladkii uu ka daba imanaya haddii walaasheen ay khalad sheegtay labadooda story ma oran karna labadiiba mid baa runaa wuu dhaartay isagii iyadu may dhaaran waxba iyadu waxay tirsidan igu sameysay isagii waan ka dhaartay wuu yiri ilaahay waa caadil ayaa always story kastana waxay leedahay two side laakiin always tarunta ayaa xaqiiqda ayaa timaada marka ma garan karno mid saxsan laakiin waxa xaqiiqa in labadii hadal iskhilaafeen marka I don't know runta markaan ka hadlo ma garanayno laakiin kolba magaceed inay iskhilaaftay ila hadalla badan suuqi la dhaxmaray anyway waxay noqotaba inanta yar way dhibaataysan tahay walaashay haday khalad sameeysan inay been sheegto ma ahayn hadii laga bahalkay laakiin inanta yar waa inan dhibaataysan waa inan daawac weyn soo gaadhay waa inan sanadkii hore inta la kufsaday oo baraha bulshada lagu soo ceebeeyay oo nin reeb gareeyay aan loo heelin oo xaqeedii looga qaadin oo ninkii maxkamad iyo dacwad la marin oo la soo daayay gabadha markaa dhaawac weyn ayaa gaadhay qalbiyan ayay inanta yar u dhaawacantay depression miya wax kale miyaynu ognahay bad laakiin waxaan ognaa inay inanta yar trauma qabto ilaahay wa subxaanahu wa tacaala iyadana dembi ma saarayo waa qof dhibaataysan hadday xataa been sheegtay khalad kugu dhaca laakiin shishunan inay sheegto been sababta beentu always way kaa daba timada qof bini'aadmiyana maadaama iyada lasoo xumeeyay in iyaduna qof kale xumayso always wixii kugu dhacay runtaa laga sheegaa qofkaagu hadduu khaldan yahayna runtaa loo sheegaa mid uu yahayba hayeeshe inanta yar waxay u baahan tahay in la caafimaadiyo caafimaad dhakhtar la geeyo si therapist loo geeyo qur'aan la saaro intensive caafimaad la siiyo sababtoo traumadu wax sahlan maaha inanta yar daawac ayaa gaadhay caawimaad weyn bay u baahan tahay $1 million xataa hadaynu lacag ururino waxaa la leeyahay lacag loo ururiyo okay way fiicantahay lacag loo ururiyo meel la geeyo laakiin anigu waxaan oran lahaa waxaas oo dhan ka muhiimsan inantan caafimaadkeeda lagu dadaalo inantan yar in dhakhtar la geeyo in quraan la saaro in ay hiil garowdo in ay kolba xanuunkii ku dhacay kama go'ayo dhaawacaasi meelunbu ku oolayahay laakiin in laga daweeyo si ay adduunkeeda horumar u gaadho hore u socoto adadaygu noqo u yeelato hadda ogaato nimanka kala barato dhibaatada kala barato taasna waxaan jeclaan lahaa in inantan caafimaadkeeda ku dadaalo aynu wixii garab siin karnaan aynu garab siino oo aynu taa xooga saarno dhoofka iyo waxa kale haba dambeeya caafimaadkeeda sababtoo iyadoo dhibaataysan oo xanuunsanaysa hadday qurbo timaadana dee xanuunkii meeshii unbuu yaallaa qurba waxba ma daweeyo waxa dadkeenii maalin walba mental illness iyo dhibaato iyo traumadii inagu soo dhacday inaan iska caafimaad iyo depression iyo inaga dhan waynu wada xanuunsanaynaa in loo gurmado in
wiilkaa islaameedna haddaanu dembi ka gelin isagana aan dembi la gaadhin qofka bini'aadamigana hubsiino halbaa la siista in wax la hubsado dadka la wareysto sidii wuxuu dhaceen lasoo ogaado bahad inta bicturekiisii suuqa la geenaya sababta waa wiil Soomaaliyeed aniga isaga ma aqaani iyada ma aqaani laakiin isagana maanta inuu dhaawac soo gaadho waxaanu khalad aanu gelin haday ku soo gaadho taasina iyaduna waa inkaara kale reer kale ayaa dhaawacmaya iyaguna oo Soomaaliyeed marka insha Allah bidmillaah karin inaynu xaq soorayaan noqono weeye inaynu qabiil daba orodna maaha inaynu qof qabiil ku taageerno maaha inaynu isku dagaalno maaha gabar Soomaaliyeed qabiil male sideedaba I don't know waxa dumarkeenu ay u fahmi laayihiin oo habeen iyo maalin aynu qabiil isugu jiidanayno gabadhi waa gabadh meel kasta adduunka aad ka timaadid gabadhi waa gabadh Soomaaliyeedna waa walaasha isku dhiig bad wadaagtaan isku af bad wadaagtaan maanta wiil iyo gabadh haday noqoto mar walba gabadhan garab ka siinaya gabadhan u heelaya because gabdhaheenu waynu dulmanahay laakiin inagoo dulman inaynu inaguna dambiye kala galno maaha marka insha Allah bidmillaah karin I hope inan taayiro walaashay ilan taayir in Ilaahay caafimaad siiyo in caafimaadkeeda aynu ku dadaalo in aynu u heelino laakiin haday khaldan tahay inaynu khaladkeeda u sheegno because qofka khaldan khaladkiisa waa loo sheega hooyadeedna khalad waxay ku sameysay maamadu gabadha yar inay cidla u soo dirto ma yahay gabadha yar oo xanuunsanaysa oo dhaawac gaadhay oo la reeb gareeyay oo dhibaato weyn soo gaadhay oo dhaawac ayay cidla ku soo deysay cidla iyo Nairobi meel waalatay noqotay anagoo berigii horaan joogay mani yeeriska hore ayayba meel fusuq ahayd waa Nairobi oo hadda la leeyahay wayba ka sii dartay marka insha Allah bidmillaah karin inan taayir aynu u heelino qof kasta oo dhibaataysan aynu u heelino gabar kasta oo walaasheena hooyo ah dhalinyaro ah weyn ah aynu garab siino caafimaadkeena aynu ku dadaalno iyo meel kasta aynu joogno ay suhlan hayashiyeenan xaq darrada isugu heelin xaq darro qabiil male xaq darradu iyo dulmigu ma fiicna waxa wadankeeni dumiyay waxa ummadeeni baabiyay waa xaq darro iyo inagoo dulmiga isku taageerna yeenan dulmiga isku taageerin insha Allah bidmillaah karin fiimayarna Ilaahay waxaan uga rajeynaa oo Ilaahay uga baryaya siniyada Ilaahay subhanahu wa ta'ala inaan taayirno caafimaad siiyo Ilaahay inuu horumar siiyo Ilaahay dibkiisa soo maray inuu ka saaro Ilaahay qalbigeeda inuu u nadiifiyo u caafimaadiyo dibka ay ku jirtaan Allah subhanahu wa ta'ala ka saaro intaynu video kale ku kulmayno khayr ayaan idin rajeynaa aynu dhamaanteen isu soo duceyno assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh